الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها مسلمين تا ميل كستو الدنيا كجوكتان مر لوات وحان إذنكو سلامي سلامة إسلامك كدبنا إن شاء الله تعالى حدو إلهي أقلاده وحان ربا كليب كانير inaan ku soo gudbiyo shacbaan oo maxaa tahay bisha shacbaan iyo in loo ixtifaalo loo dabaaldego haweenka 15 shacbaan caawa oo kale shareecadeena islaamka ah maxay ka qabtaa dabaaldega 15 shacbaan ayaan wax ka taataaban doonaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ii ogolaado marka walaalayaal bishan shacbaan waxaa sunno ah ama saan wada ognahayba bishan shacbaan inuu qofka soonka badiya adkaarta badiya quraan akhriska badiya uuna u diyaar garoowo isdiyaariyo bisha ramadaan sababtoo maxaa yeelay bishan shacbaan hadday dhammaato bisha ku xig waa ramadaan marka saa darteed qofka muslimka ah waxaa laga rabaa inuu isku diyaariyo uu u diyaar garoowo bishan iskugu diyaariyo dhexdeeda bisha ramadaan marka saas awgeed bishan waxaa nabiga ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam inuu nabiga sal ly salam uu aada u badi jiray dhexdeeda soonkeeda inuu aada u soomi jiray nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii ay caaisha ay weydiisayna rasuulkii allow maxaa ay weydiisay maxaad u soomaysaa waxaan arkayaa inaad soomayso oo zaa'id u soomayse markaasuu nabiga wuxuu ku yidhi sal ly salam maxaa yeelay bishani shacbaan waxay u dhexaysaa bisha rajab iyo ramadaan ayay u dhexaysaa waa rajab shacbaan ramadaan marka waa ramadaan iyo rajab ayay u dhexaysaa shacbaan marka bil ay dadka ay ghaafil ka yihiin weeyaan marka saa darteed ayaan u soomayaa acmaasha ayaa la rafcinayaa ilaahay xaggiisa ayaan rabaa wiir nabi sal ly salam anigoo sooman in acmaashaya la rafciyo oo kor loo qaado xadiidkaasi waa xasan albani ayaa saxiix yeelay fii silsilati saxiixihi ayuuna ku saxiix yeelay xadiidkaasi marka walaalayaal horta waxaan shaki ku jirin in la jeclaystay bishan dhexdeeda uu nabigana u jeclaystay inuu soomo uu soonka aada u badiya ayuu nabiga jeclaystay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida soomkani oo shacbaan ah ibnu xajar oo sharxiisa uu ku sheegay oo xadiid uu bukhaari warinaya caaisha ayuu tiri rasuulku sala allahu alayh wasalam waxaan arki jirnay asigoo sooman xataa naquulu ilaa aan ka niraano nabiga sal ly salam ma afuraya miya mana arkinay tiri nabiga sal ly salam asigoo bil kaamil soomaya ma arkin ilaa ramadaan mooye laakiin shacbaanna wuxuu ahaa ra'aytuhu waxaan arkay nabiga sal ly salam asigoo soonka badinaya oo soonka shacbaan asigoo nabiga aada u badinaya ayaan arkay ayay tiri caaisha radia allahu canha marka meeshaasi waxay ka tusinaysaa walaalayaal in aada loo badiyo bishan shacbaan dhexdeeda cibaadaad quraan akhris duco sadaqaad adkaaraad wixii soo wahliya oo khayraad ah ayay ku tusinaysaa sida uu rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayhiba uusan say caaisha tilmaamayso uu zaa'id uu u soomi jiray uu u badin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaan ka imaano bishaasi intaas aan uga gaabsado bisha shacbaan uu nabiga uu ku tilmaamay inay tahay bil u dhexaysa rajab iyo ramadaan bil u dhexaysa maadaama ay tahay ay dadkeena ay yihiin kuwa aan ogeyn
ay tahay ayaan u badinayaa uu yidhi soomkayga aan rabaa inuu ilaahay waa ay tahayna uu sheegay in acmaasha kor loo rafcinayo oo la qaadayo aan rabaa uu yidhi in la rafciyo soomka anoo sooman ayaan jeclaystay iyuu nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh. nabigana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi haddii jirto acmaal aakhiro loo shaqaysanayo oy dadka khayr iyo wanaag iyo baraqo iyo ugu jirta hadday tahayna nabiga waa u sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. nabiga waa taa waad ogtihiin fadliga ay leedahay leylatulqadriga nabiga wuu ka sheekeeyey axaadiis saxiixana ku soo aroortay wuu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka haweeno badan iyo maalmo badan ayuu nabiga tilmaamay sida carafa oo kale 10 maalin fadligeeda qur-aankiina waan ku aragnay axaadiistii nabiga saxiixdayna waan ku aragnay. halka maalin oo la soomo ne waa aragnay canshuuraana waa aragnay oo nabiga sal ly slam uu inoo tilmaamay oo inoo sheegay fadligeeda iyo axaadiistii ku soo aroortay waan aragnay. haddii la yidhaahdo bisha shacbaan 15 ilaahay ayaa soo degayo addoommadiisu u dembi dhaafaa yaa caafimaad rabuu dhahaa. hadday sheekadu saas u tahay siduu nabigu inoo tilmaamay ayuu waxay tahay ilaahay inuu mar walba haween walba haweenada ka mid tahay ilaahay inuu soo degayay uuna weydiin jiray uu ilaahay jiray yaa weydiisanaya caafimaad uu nabiga inuu dhihi jiray waa inoo sheegay. marka walaalayaal hadday acmaal khayr ay jirto nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa inoo sheegay wax uu naga qariyey ma jirto. marka soomkan lagu soo kooway 15 shacbaan maalinteeda haweenkeedana qiyaamo hala sameeyo hala istaago oo ilaahay waxa la weydiisto horta cibaado in haween la sameeyo oo la istaago wax xun ma ahan balse laakiin su-aasha meesha taale waxay tahay haweenkaas keli ayaad ugu dayanaysaa oo sameeyey meesha taalo waa taas. axaadiista tilmaamaysa oo ka hadlayso haweenka shacbaan ka hadlaysa oo dhan isku soo duuduub kulligood waa kuwa daciif ah iyo kuwa been abuurasho oo mawduuc ah way aan waxba ka jirin. allahuma hal xadiid markii laga soo reebo oo halkaas xadiidna ibnu maajah wariyey oo ilaahay wuxuu fiiriyaa addoommadiisa oo dhan waana u wada dembi dhaafaa ilaa 2 qofood mooyaane qof mushrik ah iyo midka kale walaalkiisa qalbiga xaqdi iyo xaasidnimo u haya mooyaane xadiidka tilmaamaya xadiidkaas unbaa hoogaa yar loo helayaa ay weli badnaankeed culimmada kale ay riixayso loo helayaa culimo qaar oo saxiix yeelayso sida sheekh mustaf alcadawi oo kale uu saxiix yeelayo ama culimmada kale oo xadiidkaas ibnu maajah wariyey mooyaane inta kale oo dhan waa axaadiista ku soo aroortay axaadiis makduub ah oo aan waxba ka jirin waay oo la daciifinayo dhammaantooda. marka walaalayaal cibaado sideedaba waxaa loogu daydaa nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. qof walbo wuxuu asi u rabo inuu dhoodhoobo uu dadkan diin uga dhiga diin ma naqanayso. man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ay marduudun calayhi. qofkii camal sameeyo camalkaas uu samaynayan uusan ahayn camalkii uu nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisa la yimaadeen qofkii uusan ahayn camalka aad samaynayso waa camal adiga lagugu soo celina cid kaa aqbalaysa ma jirto. teeda kale soo ma ahayn xadiidkii abi hurayra uu warinayay nabiga uu tilmaamayey in maalinta jumcaha keligeed la soomi karin maalinta jumcaha keligeeda in la soomi karin allaahumma in maalin khamiis la soomay ama aad rabtid inaad sabtida ka horeysa aad soonta rabta mooyaane beritoole 15 waxay ku soo aaday jumco soonkaas maxaad ku sameyn rabtaa sideedna u soomi rabtaa maba baneynayna jumco keligeed oo la soomo waxbaa meesha ka qaldan u baahan in naftirkeeda la daaweeyo. soomka aad beri soomi rabtid jumcaha ah 15 shacbaan aad u soomi rabtid soom ma ahayntii nabiga uu reebay in maalinta jumco keligeeda la soomo berito see yeeli rabtaa marka
walaalyaal inaan diinteena barano waa muhiim. waa muhiim in diinteena aan barano. inaan cibaado haddaan samaynaynin waa inaan ugu dayanaa nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. bishan shacbaan bilaaweedaa la rabay inaan cibaadaadka badino, soonka aan badino ayaa la rabay, laakiin ma aysan ahayn inaan kusoo koobno 15 shacbaan. dad baad arkaysaa habeenkaasi cibaado khaas ah samaynaya habeenkaas keligeed. haddaad leedahay ilaah baa soo degaya lanoo dembi dhaafaana, ilaahay habeen walbana wuu soo degayaa siuu nabiga u tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. degid asiga u qalanta way anaga aanan aqaanin, aanan qiyaasi karin, yaliiqu bijalaalih jala jalaaluh. marka walaalayaal in loo ixtifaalo, loo dabaaldego habeenka nis leylat shacbaan, habeenka 15 oo shacbaan in loo dabaaldego, meel ay ka soo aroortay shareecadayna ma jirto. wax daliil ah ka soo aroorayna ma jiraan in habeenkaas loo dabaaldego. habeenkaas in loo dabaaldego wax daliil ah ku soo arooray ma jiraan. marka walaalayaal diintani ma ahan qof walbo siduu ka doono inuu yeelan kara ma aha. marka walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo, dunuubteena ilaahay ha isku dhaafo. marka habeenkani loo dabaaldegayo oo la weyneynayo ay ummaddu wada ordayaan habeenkani ama iisoonkiisa wax daliil oo ku soo arooray in habeenkan cibaadaad khaas la sameeyo. islaam markaan ku laabto hadalkaasi ibnu taymiya raximahullah, shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa wuxuu leeyahay bacdu salafka qaarkood ayaa habeenkaas dukan jireen, salaad samayn jiray, laakiin ma ahayn guryahooday iskaga cibaadaysan jireenoo weyneyn jireen, laakiin waxay iskugu imaanayaan masaajidada ama cibaadada khaas ay samaynayaan ma jirin ayuu leeyahay. laakiin meesha ay culimmada qaarna ayba axaadiista ku soo aroortay oo dhan ay daaqada ka bixinayaan, aysan waa waxba wax nas ah ama wax sugan uusan ka soo aroorin habeenkaas ay sheegayaan. marka ilaahay ha idiin barakeey walaalayaal. cibaadada aan samaynayno waa inay ahaataa cibaado aan ugu dayanayno nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh. hadday dhinac marsan tahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wax aynu qabanayso ma jirto. maalinta qiyaamo ayaan la imaan doonaa. maalinta qiyaamo markaad timaado cibaadadii aad la imaatay ayaa kuu taala yaad ugu dayatay oo intay ka keentay, yaa ugu dayatay inteedna ka keentay. malihi bisha shacbaan yaan la soomin dhexdeeda malihi, way soo aroortay oo nabigaa soomi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. laakiin cibaadadan lagu soo koobay 15 shacbaan, habeenka 15 maalinteedana la soomayo lagu soo koobay yaa loogu dayanoyaa waay, yaa loogu dayanoyaa. marka ilaahay ha idin barakeeyo walaalayaal. haddayba cibaado tahay nabiga waa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam. qiyaamuleyl nabiga waa ka hadlaya habeen walba. soom wixii sunooyin ah waa soo sheegay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh. shacbaan soonkiisa badiya, inuu nabiga soonka badinayay uu soomayey waa aragnay xadiidkii Caaisha uu warinay ay warinaysay. laakiin aaway nabigoo salawaatu rabbi wasalaamu calayh ku koobay cibaado 15 shacbaan habeenkaasi nabigoo soomay ama nabigoo qiyaamuleyl sameeyey ama nabigoo ummadda ku booriyey inay fadli dheeraad ay leedahay. aaway qiyaamuleyl soo ma ahayn nabiga inuu nagu booriyey inaan sameyno. laylatul qadriga aan iraado, laylatul qadriga soo nabiga naguma boorinin inaan raadino, soo nabiga naguma boorinin inaan habeen walba istaagno oon ilaahay barino qiyaamuleylka fadliga ay leedahay, soo nabiga inooma sheegin. haa, laakiin maxaa lanoo sheegi waayey, lanoogu sheegi waayey shacbaan 15 maxaa naloogu sheegi waayey? nabiga inooma sheegin salawaatu rabbi wasalaamu calayh, fadlina kuma sheegin salawaatu rabbi wasalaamu calayh. teeda kalena haddiiba habeen la fadilayo ama cibaado la sameeyo ama la soomo, laylatul jumca ayaa ugu khayr badan. habeenka jumcaha ayaa ugu khayr badan. waa tan habeenka jumcahana maalinteeda keligii jumco keliga inaa soonto lagu diiday. marka walaalayaal ilaahay aan ka cabsano. ummadda waxaanan cibaado ahayn yaanan cibaado looga dhigin. waxaan nabiga ka sugnaanin yaan ummadda lagu lugoynin. diinta say tahay aan u qaadano. ummaddan wax u taraayo adduunyadooda iyo aakhiradooda ha loo sheego. culumoy
waxa ummadani diintooda iyo aakhirada anfacaya ha loo sheego. icafi dad badan waxaad arkaysaa icafi caawa leylatu shacbaan kalbar waay caawa icafi war akhiyow labada walaaloo muslim aynay mar walba iscafiyaan ayaa sunnada ahba. mar walba inaan iscafino. habeenkan shacbaan keligiis maxaa ku soo aadiyey? haween maalin walba inaan iscafino iyo saacad walba inaan iscafino ayay diintana baraysay. laakiin inaan ku soo aado haweenka shacbaan nisfu shacbaan inay ku soo aado aan keligeed cafis iga codsato intay ka imaatay. marka yaanan waxaan diin ahayn ummadda diin looga dhigin. ummaddaani inay mar walba iscafiso, qofka uu qalbigiisa nadiif ahaado, aan cadaawada iyo uqdada walaalkiisa u cafiyo, weligeena lana camray. waa tii xadiidkii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi u ahaa laa taxaasaduu walaa tadaabaruu. xadiidka micnihiisu ahaa ha isxasdina, ha isdhabeerjeedinina, wakunuu cibaad allahi ikhwaana. addoommadii ilaahay waxaad ahaataan kuwa walaalo ah. mar walba ayaa nala amray inaan iscafino. saacad walba daqiiqad walba ayaa lana amray inaan iscafino. laakiin inaa ila sugtid sanadka shacbaan, sanadka ilaa sanadka kale, shacbaan nisf markuu soo gaaray dhahda ilaa loo icafi, sax ma ahan intaas. mar walba inaan iscafino. ummaddana mar walba ha lagu booriyo inay iscafiyaan, yaan lagu soo koobin shacbaan nisfu shacbaan keli ah. ilaahay tawfiiqana waafajiyo meel kastood adduunya ka joogno. ilaahay inoo dembi dhaafo. walaal diinkeena aan barano. haddaan diinta aanan baranin, qof walba ayaa maanta nagu ciyaarayaa. qof walba ayaa maanta nagu ciyaarayaa. marka waxaan nabiga ka sugnaanin yaan diin laga dhigin. waxaan nabiga ka sugnaanin yaan diin laga dhigin. yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuul walaa tubtiluu acmaalakum. ilaahay iyo rasuulkiisa aan ateecno, acmaasheenan yaanan iska burinin. lianna maxaa yeele acmaashan aan iska burin, man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa rad. haddaad cibaado samayso aadan nabiga ugu dayaynayn waa lagugu soo celina. marmarka masaajidka waxaad arkaysaa nin salaada duhurka waxaa soo sugnaatay sunooyin khaas ah, laakiin qofaa maanta o dhan iska istaagaya, salaadu iska tukanaa maanta o dhan. sunnadii afartii waa dhaafay, waa mar hore gudbay, maanta o dhan iska wadaa, wuu istaagaa, wuu dukanaa, maanta o dhan waa iska tukanaa. maxaa markaa dhahdeen waxaa iska jeclaysa inaad iska dugto. waa sax inaad iska dukatid, waa jeclaysatay, balse laakiin waxaa kuu taala yaad ugu dayanaysay. marka cibaadada walaalayaal, sida adiga aada doontid cibaado ma naqanayso. sida ilaahay doono uu nabigiisa na amray oo nabiga na tusiya ayaa cibaado ah. marka ilaahay ha idiin barakeeyo, dunuubteena ilaahay isku dhaafo. marka walaalayaal, hala dadaalo oo diinkan ha lagu dadaalo, barashadiisa ha lagu dadaalo, inaan ummadana say wax u jiraan inaan u sheegnin aan ku dadaalno. waxaanan cibaado ahayn yaan ummadda cibaado looga dhigin. waxaanan cibaado ahayn yaan ummadda cibaado looga dhigin. mar walba aan ku dadaalno iscafiska. mar walba aan ku dadaalno, saacad walba, daqiiqad walba, mar walba inaan iscafino. marka axaadiistan ku soo aroortay shacbaanka nuskiisa ku soo aroortay, axaadiistaasoo dhan isku soo duuduub ilaa halkii xadiid aan tilmaamaynay oo ibnu maajah uu warinayay oo ilaahay addoommadiisu uu fiiriyaa. xadiidkaasunbaa culimo qaarna way daciifiyeen, qaarna ayaaba sheekh hadda oo nool sheekh mustafa alcadabi unbaa saxiix yeelay, ama ummadoo kale culummada kale oo dhanna daaqaday ka bixiyeen xadiidka. marka ilaahay ha idiin barakeeyo. wixii aan gafiifa min nafsii washaytaan, wixii aan asiibayna ilaahay xaggiisa ayay ka ahaatay, wax kale ma rabin ilaa khayr mooyaane. hada wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.